shirkadda Cali Galle Group ayaa maanta waxay ku dhawaaqday adeeg cusub ay soo kordhisay kaas oo ganacsatada Soomaalida loogu fududeynayo qaabkii loogu soo saari lahaa deganaanshaha waddankaasi Britain iyaga iyo qoyskoodaba. Liibaan Cali Galle oo ah agaasimaha Soomaaliland ee shirkadda Cali Galle Group waxa uu faahfaahin ka bixinayaa adeegaasi ay soo kordhiyeen iyo muhiimadda uu leeyahay. hore nooga baratay aan shirkadda Cali Galle Group ay caan ku tahay inay marba soo kordhiso adeeg cusub oo bulshada iyo macaamiisha qanciya. waxaanu doorkan bulshada reer Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalalka Geeska Afrikaba aanu soo kordhinay adeeg cusub. adeegaas oo ah adeeg loogu talagalay dadka ganacsatada ah. waxaanu fududeynaynaa waanu kala shaqeynaynaa dadka ganacsiga ku jira ama ganacsatada ah ama hantiilayaasha ah iyo qoysaskoodu in ay degaan dalka Ingiriiska oo residence visa aanu soo saarno. residence visa wuxuu ka caawinayaa in ay helaan waxbarasho bilaash ah, in ay helaan caafimaad bilaash ah, in qofkii ganacsadaha ahaa uu business ka samaysan karo dalka Ingiriiska, in uu ka shaqeyn karo, inuu shirkado ka asaasi karo, inuu license LTD ah oo dalka Ingiriisku leeyahay uu qaadan karo. waxyaabahaas oo dhan ayaan u keenay dadkeena ganacsatada ah inay halkaasna ka faa'iideystaan. adeegani wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan. faa'iidooyinka faraha badan ee uu leeyahay waxaa ka mid ah inaanu anagu fududeynayno majority-ga case-kii uu qofkaasi ku tegi lahaa xafiis ahaan anagu aanu qabanayno. isagoo qofkii halkiisan jooga baanu anagu soo saaraynaa fiisihii isagoo aan meel la tegin. gurigiisaan ugu keenaynaa isaga iyo qoyskiisaba. marka uu dalka Ingiriiska tago waxaanu kala shaqeynaynaa inuu settle gareeyo oo uu dego dalkii. waxaanu ka caawinaynaa wixii uu uga baahan yahay dalka Ingiriiska in looga qabto. waxaan la shaqeynayaa looyaraho heer caalami ah oo waxa weeyaan caalamka dhan laga garanayo. waxaan la shaqeynayaa looyaro Afrikaan ah oo waxa weeyaan sinjiyadeena leh. waxaan la shaqeynayaa home office dalka Ingiriiska oo process-kani uu isaga hoos tagayo. marka waxaanu doonaynaa inaan ugu bishaareyno ganacsatada reer Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan in ay xafiiskan aanu saaka joogno ka heli karaan fiisaha deganaanshaha dalka Ingiriiska oo waliba si dhaqso ah ugu soo baxaya, qiimo macquul ah ugu soo baxaya, adeegiina loogu qabanayo sida ugu fiican, iyada oo case-kiisii iyo process-kii uu qofkaasi ku heli lahaa ama isaga iyo ehelkiisu ay ku heli lahaayeen barnaamijkaas ku heli lahaayeen aanu anagu u fududeynayno anagu Hargeysa joogna anagoo waxa weeyaan isagii dalka joogo oo aanu meel la tegin. dalalka aan hore uga shaqeynayna waxaa ka mid ahaa dalka Turkiga, dalka Suudaan, dalka Nigeria, dalka Imaaraadka Carabta iyo Ingiriiska gudihiisa oo aanu ka soo saari jirnay markii hore. nasiib wanaag maanta waxaanu furnay xafiiskan Hargeysa oo isaguna dhammaan adeegyadii bulshada Soomaaliyeed guud ahaan u qabanaya. waanu soo dhaweynaynaa cid kasta waxaanu hubnaa 100% oo ku kalsoonahay qof kasta oo case-kiisu dhismi karo oo waxa weeyaan aan case-kiisu xidhmin in 100% ay successful noqonayso. waayo ilaa iyo imika dadka aan u soo saarnay oo successful bay noqdeen. xageena waxaan rajeynayaa inay successful noqoto biidnillaahi tacaala. waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinkaa danaynaysa. waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinkaas ka qayb qaadan karta. waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo waxa weeyaan doonaysa in ay chance labaad oo dihin oo international ah oo dalka Ingiriiska yaalla ka faa'iideysato, gaar ahaan dadka ganacsatada ah ama business ku jira ama business iskala hantiilayaasha. xafiiskan waxaanu ka furnay Burj Omar magaalada Hargeysa dabaqa labaad xafiiska 210. imika waqti xaadirkan waxaanu haynaa business visa oo aanu dadka businesska u soo saarayno iyo ehelkooda. waxaanu soo wadnaa student visa, waxaanu soo wadnaa innovator visa. labadaana dhawaan baan furaynaa. waxa iyaguna kale oo noo furan oo aan imika weli ku dhawaaqin laakiin shaqadiisii soconaysaa citizenship by investment waxa la yiraahdo oo ah qofka maalgelin dalka Ingiriiska ka samaysta midalan guri ka iibsada dalka Ingiriiska inaan u fududeyno in uu baasaboorka Ingiriiska helo ama citizenship-ki dalka Ingiriiska u helo. Dominica dalka la yiraahdo qofka ka samaysta investment inaan u fududeyno inuu helo baasaboorkii dalkaas. Granada jamhuuriyadda Granada qofka investment ka samaysta inaan u fududeyno inuu helo baasaboorkii.
waxyaabo badan baa soo socda oo aan soo wadnaa bulshada u soo wadnaa intani waa horaantii weeyaan waa iba furkii iyo albaab furistii idan ilaahay waxaan rajaynaynaa bulshadu wax badan oo ay ku qanci doonto inay naga heli doonto haddii ilaahay qadaro